بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها جمهورية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو مدحوينها دولة بودلان إيا مروديثة شرفت بضن بقرك Soomaaliyeed ee maanta xarunta dhaqanka aan ku soo salaamnoon ku soo booqanay marti sharafta kala duwan oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano heer federaal iyo heer dawlad goboleed gabdhaha sharafta badan oo heer qardho iyo dhalinyarada kale iyo waxgaradka iyo isimada dhammaantiin iyo bahda saxaafadda waxaan idinku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii maanta sharaf weyn ayay ii tahay inaan xarunta dhaqanka taariikhiga ay dadweynaha reer qardha ay khasab kaga dhigaan in laba kelimad la siiyo aad iyo aadaan ugu faraxsanaa maxaa yeelay meel caadiya ma ahan maxaa yeelay qardha waa meel taariikhiya waana meel mataqaanaa dhaqankii Soomaaliyeed oo yaallo waadna arki kartiin hadda geedka aan hoos joogno quraca mudana madaxweyne maanta adiga iyo wafdigaaga aan ka mid ka ahay waxaad halkan kala gadoomaysaa ood aragtaa waxa ugu yar oo siyaasad laga faa'iido waxaa la yidhaahdaa moral support qofku inuu niyadda kuu dhiso hase ahaatee taageero lixaad leh oo dhinac walba leh ayaad horta kala kulantay adiga iyo wafdigaaguba ama aan kala kulannay Puntland Puntlandna waa markii kuugu horeysay ood soo booqatay marka waxaad fahmi kartaa reer Puntland waxa Soomaaliya ka maqanay og yihiin waxa la haayo iyo waxa maqan waa kala garaayaan marka sharuud la'aan ayay kugu taageerayaan ma ahan dadka wax ka rabo hadda waxaas isiin iyo hadayna saas ahaan sharuudaha kugu xira kuma jiraan iyagu horta maxaa yeelay waxay og yihiin geeska Afrika dawladaha igad iyo African Union qaramada midoobay jaamacadda carabka iyo ururada islaamka ururka caalamiga oo islaamka aan ka tirsannahay intaas ba xuquuqda Soomaaliyeed inay ku maqantay og yihiin mudana madaxweyne waxay rabaan marka xuquuqdaas inaad soo celiso dalka gudihiisa markaad nabadayso oo dib u heshiisiinta aad dhammaystirto ayay waxay rabaan kaalimihii qaramada midoobay aan ku lahayn waad ogtaa 15 wareega goor noogu dambaysa lama yaqaan waxaasoo dhan inaan soo ceshanaa la rabaa marka runtii waxaan leeyahay hambaliyo Soomaaliya ha noolaato boqortooyada qardho oo dhaqanka Soomaaliyeed ha noolaado Soomaaliyana waxaan u rajaynaynaa guushaasna Puntland ayaa laga rabaa inay madaxweynaha kor iyo hoosba ay ka ilaaliso ida laga rabaa annagu runtii madaxweynaha rajo weyn aan ka qabnaa waxaadna ogtiin meel kastoo Soomaaliya kamida in looga banaanba madaxweynayaashii horena baarlamaanku hadduu doorto si waa la iska galba jira laakiin waxaad ogtiin 3 maalmood inay isdaba joog ahayd marka arrintaas madaxweynuhuna inuu ku ceeboobo ma rabno Soomaaliyana inay ku hingowdo ma rabno arrintaasna runtii
وحلف دبر وعلى قبل بس عدان مركان سود وينتين أرجني مدحوينه واللي قعنتها اللي يدين قل شو واحد هدين أيانا ريفرنس هو مدحوينها بدلان runtii waxaan uga mahad celinaa asigana shacabkii inuu mideeyay isku hayay maanta Puntland ay midaysan tahay oo maanta aynan lahayn in ma taqaanaa marka uu xilka ka degi tagaan dib loo dooro tago idoo midaysan haddana inay ma taqaanaa halkii ka sii soconayso aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum